gaaro qofkii lacagta badan uu footeynaya kaasa xildhibaan noqonayo ayaa weeye 24 hadda qof baa u ordiyay madaxnimada guri sare sameeyeen oo u bixiyeen guriga sare oo ku fadhiya dowlad goboleed dhisana ma jirto gurigaasi ma leh sharci ku shaqeynay wax dowlad goboleed dhisan oo markana way dhisan oo madaxa ka nool iyadoo qoliyadeeda aanay lahayn institutions waxa weeye waddanka Puntland la baxay arrinta maanta socota waxa weeye dowladda ayaa horta gacanta la soo galay dowladda qaar baa maryaa dhigtay dowladda sidanteeda wada laakiin dad Soomaaliyeed innaga Somaliland iyo Soomaaliya wada hadlayay 2012 baan lagu wada hadlay waxbaan ku heshiinay dowladda markaa ku meel gaar bay ahayd waxa ka madaxa Sharif ka madaxa resolution baa ku soo dhaxay shirkii Soomaaliya lagu qabtay in Somaliland iyo Soomaaliya iyagoo siman two entities ay mustaqbalka relationkooda ka shaqeeyaan dowladda cusub baa timid Xasan Sheekh ilaa maalintuu yimid wuxuu ka shaqeeyay inuu raadkii wada hadalada baabi'iyo wax maalmo meel isku xoqaba maalmo meel ku xoqaba waa markii dambe deynoo keenay bishii Maars 2015 markii inoo keenay maareeye iyo niman reer Somaliland shirka ku baabay ilaa maanta shir ma jiro maanta wuxuu ku jira Xasan Ragga front runnerska ayuu ku jira Somaliland shalay taaba maqaseen wadbadii bixiyeen niman ku dhuftay maqaseen Xasan waxa ka shaqeeyay inta nool midnimo Xasan waxa weeye inta midnimo Somaliland iyo Soomaaliya tamarna kuma leh hidan oo male Soomaaliya oo kala jarjaray oo shan dowladood ka sameeyay oo jirin magaca waxa kale isla front runner kala Sharif Xasan Sharif Axmed Sooy marka waxa weeye maanta abilkan dariya waxa weeye iyo farmaajo hataa inta leeyahay way u tuntuugayeen waxaan la hadlayaa waxa weeye nimanka iyo dumarka ku soo baxay guriga sare iyo guriga hoose wuxuu bixiyeen anuu shakhsiyan ma believe karaystay inuu waxaan ay sameeyeen ee dowladda goboleedyada ay jirin oo dayma ma taqaantiin gobolada dhexe iyo dowladda Garowe saddex dowladood ka sameysay tii soo jamaa oo joogtaan oo la fiican dhisano soo jamaa oo Soomaaliya caasimad ka tahay kelmadu waxay bixiyaan ka sameysan meesha ay cadaado kaalka ayuu laba dowlad ka sameysay yani waa fidmo Soomaaliyeed ma hal Soomaali wax la wada waxay markaa dadka maanta flood ka bixinaya dad maalinta bishideedida xaleeya lacag badan ma socota aadi socota ilaahay ka baqanay subhanahu wa ta'ala inta soo wuxuu dhan sistkooda uu qaldan yahay hadana maadaama waxa ka soo baxa dowladda ugu sheegi doon ilaahay ka baqa subhanahu wa ta'ala mustaqbalka umada sheeganaysan nabi cuseen saay gacanta ku haysta qofka sari kood buu leeyahay Xasan koodkiisi afartii sano wuxuu qabtay wuxuu soo kordhiyay dhaqaalihiis muxuu ahaa wuxuu maanta haystaa jeebkiisa Sharif Axmed shalay taw wadaadkiisa uu yahay la xisaabtama wuxuu qabtay farmaajo madaxiisa wasaaraha la xisaabtama waa inaan hungurigeena wadeen damiirkiina iyo aakhiradiina ila wadaalada anagu ciidana danahay aan jecelahay halka ay dawlad على الأقل ضد نظيف كصوبها والسومالنا دي صوماليا عم وضع هذا الله قلنا بده له ولا حسب ما هو ساحن أنا السوماليا هي السومال كويس والبابا عادته ما يصلي هم ما تسوي شيء ما تسوي كعقل
in Soomaaliya 25 sano wadda khaasa qabsatay nidaam khaasa gaar samaysatay way ogtiin inaan lama shaqay la xiriirtay jiray aan dib u noqon walaakis dadka aqoonna afka iska xumaysa wadii ku sheegay halgankii iyo dhibaatadii nagu dhacay aad tiri caadifada way dhamaatay caadifad ku sheegay wixii nagu dhacay ogeen radio halgan muqdisho dhigaysan jirtay ku barbaaray propaganda Maxamed Siyaad Barre ayada aqoonta Soomaal tayadeeda iyo capacity walahi anigu waxaan leenahay maanta gacantina ku aarso u aariyo dadkeena idama sheer danta Soomaali ma qoqobaha qalaalka loo sameeyay dawladda si danta Soomaali ma khayraadka Soomaaliga guranaya magaca Soomaaliga ku seexayaan qiimaha ya qaarada lagu haysan badda seexeen ma danta ma waxdan Soomaali wada ma jirtay maalin ban ku halka ordiyana oo laba qolana waxay wadataa barnaamij political strategy reer ku dhisan bay wadataa qolana waa lacag ka guraj oo ma laha siyaasadda waa guri waa dadka u ortiya labada ugu tunto beerada ugu tunto weyn dan Soomaali wadan jiro waxa wax leeyahay bisha koo qabta xasbana inuu wakiildaha damiirkuna hay'ad xukumo ana insha Allah ta'ala wasoo duceeyna insha Allah ta'ala kuwa shay Soomaaliyan ka soo jeeday magaalada loo bixiyay maacuunka loo bixiyay baalashayaasha loo bixiyay maanta waxaan arkaynaa dad badan cusub baa soo galay dhalinyaro baa soo baxday inkastoo aniga aan nabadgelin haddana dee magaca way nala wadaagaan waxaa leeyahay maanta idinku waxaa noqon kartaan king makers haddayd intiinaasi halka marisaan oo ilaahay ka baqdaan dad wanaagsan ku caawiya foodkiina maaha qofka fiican caawiya iyagana wax u tariya annaguna aan kala baxino laba wadan oo walaala aanu noqonino insha Allah ta'ala wasbarbariyala haddii maanta taa laga tagana Soomaaliya waxay diyaar u tahay 10 sano hore dagaalamisay anana 10 years aan diyaar ninka nagu soo marmarsooda wana aqlaheed ana waa kulina insha Allah ta'ala gudahay waa dhamaysanina insha Allah ta'ala xatumay waa dhamaynina arrimaheeda waxaan jeclahay anagoo Soomaaliya hada dhamaysan ina tiina wax ka sar waano xumaantiina waa xumaanteeda wanaagiya xasidin malisiina siyaasiyiin tajin marka waxa leeyahay golaha shacbiga u baxdeen golaha salaama baxdeen ilaahay ka baqo subhanahu wa ta'ala lacagta ka qaata waa tiini nalacag mu haysan ma ku yimi ana xasuustaa shir ma haysan engineer ma haysan maanta waa kale leeyahay wax bixinaya intaasoo laba boqol konton kuma qof siinaya حرام وي لكن حرام سي حمانسا ما كان حق درجه فوتيس كقاطع حولينا انا وصومال احنا كعنو كعضين فورمولا قاطع ان شاء الله تعالى السلام عليكم.